Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. Waxaan joognaa bartamaha Buurta Xurriyadda oo ku taalla magaalada Hargeysa. Goobtan oo ah goobaha isugu yimaadaan bulshadu gaar ahaan xilliyada munaasabadaha gaarka ah amba xilliyada qaranka inta badan ayaa qayb ka mid ah ay ka shaqeysay dowladda hoose Hargeysa oo hogaaminayo maayarka caasimadda Cabdikariin Axmed Mooge. Goobtan oo muddooyinkii ugu dambeeyay dareen badan lagu waday haddana u diyaarsan goob nasasho oo waqti lagu qaadan karo ayaan maanta oo Jimca aniguna waqti ku qaadanay. Sidaad u jeedaan meeshan green badan ayaa ka muuqda indhihiina sida arkayaan dib casriyeyn badan baa lagu sameeyey. Qofka yimaadana waqti badan buu ku qaadanaya haddii uu shaaxiisa soo qaato asxaabtiisa iyo family-giisana waqti buu kula qaadan karaya. Soo dhawaada saaxiibayaal, halkan ayaan maanta aniguna waqti ku qaadanay. saaxiibayaal sida gadaasheeda u joogtaan halkan dhabarkayga waxaa ku yaala geed ka mid ah geedka ugu caansan magaalada Hargeysa. Geedkan oo loo bixiyay geedka nabadda, waana geed hoostiisa inta badan barnaamijyo badan lagaga fuliyey oo magaalada Hargeysa lagu horumariyey oo ay dowladda hoose iyo maamulka dowladda hooseba ay ku shireen. Waana geed hoostiisa iyo dushiisa laga shaqeeyey kuna yaala goobtan Beerta Xurriyadda. Waana geed aad iyo aad cajiib ah sidaad arkaysaan oo waxaa magaciisa ku qoran geedka nabadda. Waana geed u diyaarsan in lagaga aragsan karo arrimo badan oo nabadda la xiriira amba lagu horumarin karayo caasimadda Somaliland ee Hargeysa. saaxiibayaal waxyaabaha cajiibka ah ee intii halkan joognay aan ku ragnay waxaa ka mid ah goobtan oo ah goob u diyaarsan in maxay ahayd dadku ay ku nastaan oo waqti badan ku qaataan. quruxdeeda iyo bilicdeeda soo jeeda waa aragtaan, kuraasta iyo miisaanta ku diyaarsan oo dadka waqtiga ay rabaan ay ku qaadan karaan. Waana goob aad iyo aad u cajiib ah run ahaantii oo ku faraxsanahay inaan maanta soo booqanay oo waqti ku qaadanay aniga iyo qaar ka mid ah asxaabteyda oo maanta ila socday. saaxiibayaal halkan imika aan fadhinaa waxa weeye goobaha loogu talagalay in lagu nasto marka halkan cabaar waqti lagu yar qaatay la joogo oo weliba waxa weeye goobahooda har kale loo sameeyey meesha yar la harsado. runtii meeshu maaha meel laga xiisa dhici karo oo dee waa meel aad u qurux badan odhan karaa oo dhir cagaaran ku yaal. xaggan waxa ku yaala dhir baa lagu beeray, adigu dib u habeyn fara badan baa lagu sameeyey intii dowladda cusube Cabdikariin ay haystay. aad iyo aad buu mahadsan yihiin. saaxiibayaal hadda waxaan fadhinaa goob ka mid ah goobaha u diyaarsan nasashada. Halkan aan fadhiyo waa meelaha loogu talagalay dadka waqtiga ku qaadanaya Beerta Xurriyadda ee ku nasanaya inay waqtiga ku qaataan oo fadhiistaan oo ay shaahooda ku cabaan haddii ay sheekeysanayaan iyo haddii ay hawlo kala dhameynayaanba. goobahan oo kalena waa goobaha muhiimka ah ee bulshadu u baahan tahay. waddan kastana meelaha public park ama meelaha ay ummadda isugu timaadeen noocan oo kale ah waa goob aad iyo aad loogu baahan yahay. waana ku faraxsanahay inaan maanta soo booqano. dowladda hoose aad iyo aad bay ugu mahadsantahay maadaama oo ay qayb ka ahayd amba ay fulisay mashruuca intan leeg, waqtina ay gelisay, qarashna ay gelisay, una diyaarisay shacabka Hargeysa meel ay ku nastaan ay waqtigooda ku qaataan.